السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسلامتين صاحبيال كسو دوادا شبكة سمدمي مقعيقو عاد باس عسنون وحانا هاي أساسا أكاديميدا. waxaa horey inoogu socday koorskan aan ku barnaynay computerized accounting-ka gaar ahaan software-ka loo yaqaano QuickBooks-ka. maanta cashirkan waxaan ka leenahay halkan ujeedadaasina waxay tahay collecting account receivables. sideeba u diiwaangelinaynaa haddii aan soo aruurino lacagta ama macaamiishan aan ku leenahay. lacagta ama macaamiishan aan ku leenahay Soomaalidu waxay u taqaanaa deyn, laakiinse marka accounting la joogo deyn ma loo yaqaano, waxaa loo yaqaanaa assets. hantidaada ayay kamid tahay lacagta ama macaamiisha aad ku leedahay. markii aad qof macaamiil lacag ah ku leed uu ku keeno lacagtaada sideeba u diiwaangelineed. cashirkan intaas ayuu ku saabsan yahay ee ku soo dhawaada cashirkeennii 11aad. okay intaanan u gudbin cashirkeena yani waxaa rabaa inaan akoonada ay saameynayso markii aan waxaan sameeyo. waxaa rabaa wixii inay noqdaan qaab itusi oo itaabsiya, sababtoo aan waa ku tusi karaa sida loo diiwaangeli kadib waa iska dhaafi karaa. laakiin waxaa rabaa waxay tahay yani si qoto dheer leh inaad u fahanto waxaan sharaxayo. okay saddexdan akoon ayaa saameyn doontaa markii macaamiil lacag ah ku lahayd lacagtaada ku keeno. akoonkooda waxaa loo yaqaanaa undeposit fund. undeposit fund waxaa u yaqaanaa QuickBooks-ka, yani akoon oo asiga uu samaystay kaas oo ku aruuriyo yani waxyaabaha maalintaas dhaca. tusaale ahaan maalinta hadaa wax iibisto, haddii macaamiil uu lacag uu ku keeno akoonkan ayaa ka aruurisaa. hadhowti gadaal dambo ayaa akoonkan ka bixi doontaa, meesha harta aad ku shubi doontaa. yani B3 markaa soo qaadanaynay akoonkan ma uusan lahayn, sababtu waxay tahay B3 marka akoonkaada geliyo kaliya lacagta oo kugu dhacay. laakiin iskan ma yaqaano, akoonkan oo ku aruurina kadib ayaa cawada markii la gaara akoonada aad ku kala shubaysaa. okay akoonka labaad oo yaraanayo wuxuu yahay customer balance. customer balance waxaa waaye macaamiilkan lacagaa ku leed. tusaale $20 hadaa ku leed macaamiilkan oo $10 uu ku keeno, yani way yaraanaysaa. taas caqliga kuu sheegaa $10 inaad ku lahaan doonto. akoon kaloo saddexaad waxay tahay account receivable decrease. account receivables waxaa loo yaqaanaa yani akoon kamid a akoonada balance sheet-ka waaye oo waana asad waaye. waxaa lagu aruuriyaa dhammaan macaamiishaada lacagta aad ku leedaha lagu aruuriyaa. macaamiisha lacag aad ku lahayd haddii $200 uu ahay macaamiisha dhan, macaamiil kamid uu ku keeno $10 inay yaraanaysa, taas caqliga kuu sheegaya. marka aan intuu qaybteena baraatikada software-keena soo furneynaa. okay markaas QuickBooks-keena soo furno sidan ay u yaalaa. marka waxaan ku dhufanaynaa tabka qoran tahay customers, kadib waxaan kusoo dhufan doonaa halka qoran tahay receive payment ama yani hel payment hel. okay receive payment markaa ku dhufano shaashada yarista noo soo kaxayso. shaashada markay noo soo dhacdo meeshan waxaa gelinaysaa macaamiilka lacagta ka hesho. okay receive it from intee ka hesha lacagtan, macaamiilka lacagta ka hesha inta gelinaysa waa furaysaa. anaga hadda macaamiil lacag ku leenahay wuu jira Cali Faarax waay. okay marka customer-ka ku dhufato isla markii asaa isoo buuxina. halkan waxaan ku arkaa lacagta ku leenahay $120 inay tahay. haddii lacagtan uu dhan uu dhiibay, lacagta dhan haddii uu dhiibay meeshaan tig saaraysaa. okay tig markaa saarto yani waxaa macnaheedu waxay weeye lacagta ku lahay dhan oo ii keenay ninkan. sidoo kale haddii uusan ku keenin lacagta dhan uu ku keenin oo lacagtii half uu ku keenay, meeshaan tigtoon qaadaysaa, meeshaan waxaa gelinaysaa lacagta uu ku keenay. tusaale anaga waxaan dhehnaa inuu noo keenay $60 camal inuu noo keenay iskale. shaashada hoose noo qarsan tahay. okay shaashada way noo yareedaa soo weynay sababtoo ah safe and close ay qarsaneed. markii $60 haddii lacagta ku keenay aad gelinaysaa. okay waxaa rabaa marka inaad intuso akoonada ay saameyn doonto inaad intuso rabaa. okay customers anoo safe aan dhihin rabaa inaad intuso. customers keena tigana customer center daa ku dhufano. meeshan waxaa ujeedaa macaamiil Cali Faarax la inaa ku leenahay $120 inaa ku leenahay inta ujeedaa. $120 way yaraan doontaa oo $60 aad kugu doonto. $60 meeshan ku soo hari doonto. sidoo kale tood reports-kan hadaa tagno customer company financial kadibna balance sheet-kan ku dhufano. meeshan ujeeda account receivable waxaa ku jirta $120 inay yaraataa rabnaa oo noqoto $60. sidoo kale meeshan waxaa rabnaa hadhowti inuu soo galo akoonka idin sheegayo loo yaqaan undeposit fund. undeposit fund macnaheedu waxaa waaye akoon yani maalinle ah oo maalin kasta waxaa sameeysa akoonkaasi gelaya, habeenkiina waa ka bixin doontaa akoonkaas. okay undeposit fund hadda meeshan ma ku jiro. undeposit fund inuu meeshan soo galo $60 ay ku qornaataa rabnaa. sidoo kale total asset-keena siisu ahaan doonaa $5380 aan ugu jirto $5380 inay ahaataa rabnaa. okay hoos naga dhig, kadibna kan haddana hoos naga sii dhig. safe and close noo dheh. safe and close hadda way muujeedi double click aan ku siinayaa, way soo weynaanaysaa shaashada. kadib waxaa leeyahay safe and close. okay transaction-ka hadda wuu dhacay. haddii aan ka bilaabno customer aan ka tagno, customer center aan kusii dhufano ujeedaa meeshaan inay ku qoran tahay Cali Faarax lacagtaa ku lehan inay yaraato $60. sidoo kale reports-kan hadaa tagno company and financial kadib balance sheet-kan aan kusii dhufano. meeshaan waxaa ujeedaa account receivables-kan inuu yaraado $60 u noqdo. sidoo kale meeshaan waxaa soo galay undeposit fund oo ujeedaa $60 inay ku jirto. total asset-kan waa ujeedaa $5380 inay tahay.
cashirkan cashir ku xig waxaan qaadan doonaa insha allah lacagta aan deposit fund ku jirto sidee baa ugu soo saari kartaa, waa ugu shubi kartaa Salaam Bank ama Dahabshiil oo kaleeto ugu shubi kartaa. cashirkan tobnaad ayuu noqon doonaa insha allah. fadlan haddii aad muuqaalkaa dhammaysatay waxaan si sharaf leh kaaga codsanayaa inaad muuqaalkan aan like saarto. waa cabdibaasit xasan nuur oo idin leh adoo dhaxal reebi kara waa noqon dhinta ala tabin. subxaana rabbika rabbilcizati camaa yasifuuna wasalaamun cala almursaliina walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin.